horta waxaan ku kalsoonahay oo kalsooni ku qabnaa nimanka maanta talada inoo haya oo aan runtii isleenahay niman ka gali kara gorgortan ma aha arinta Kenya kala dhaxaysa maamulkeena hadda jira mowqifkay ka qaateen murankii badaya jiray maamulkeena hadda jira mowqifkay ka qaateen murankii badaya jiray waxa isa soo tarayay warar aan xaqiiqda ku salaysnayn oo salka ku haya kulankii dhex maray madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya iyadoo dadka wararka been abuurka ah faafinayana ay uga faa'iideysanayeen in bulshada la marin habaabiyo bahda nabad iyo nolol.com oo si dhow ula socotay wararka la xiriira kulamada madaxweynaha Soomaaliya uu la qaatay madaxda Itoobiya iyo Kenya ayaa heshay xog xaqiijinaysa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si xoogan uga biyadiiday inuu gorgortan ama wada hadal ka galo khilaafka ku salaysan xuduud badeedka ka dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkaystay in Soomaaliya ay u aragto in maxkamadda adduunka ee Hague ay tahay goobta kaliya ee lagu kala bixi karo waxaana uu diiday dood kasta oo arrinkaasi la xiriirtay taas oo ugu dambeyntii keentay in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan qodobo kale oo ay ka mid yihiin in la soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal u dhaxeeyay madaxweyne Farmaajo ayaa si cad u sheegay in heshiiskii la saxiixay 7 bishii Abriil 2009 uusan sharci ahayn isla markaasna uu diiday baarlamaankii Soomaaliya ee xilligaas jiray waxay arintaasi qayb ka tahay ama ka ahayd xaqiijinta madax banaanida dalkeena iyo qarnimadeena oo marnaba gorgortan galin waxaan idin xaqiijinaynaa inaan sugi doono ilaalinta iyo maamulidda hawadeena ilaalinta xuduudaheena dhulka badda iyo cirkaba waqti heshiis lagu galo madaxdeenu diiday waqti heshiis lagu galo madaxdeenu diiday qaramada midoobiyo maxkamadaynu wada sugi qaramada midoobiyo maxkamadaynu wada sugi ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii la soo dhaafay ka shaqeeyay isbedelo badan oo ka dhacay geeska Afrika ayaa ku dadaalay in kulanka madaxdu fashilmin isagoo xoog saaray in la soo celiyo xiriirkii iyo wada shaqayntii mugdiga gashay ee Soomaaliya iyo Kenya intaas wixii ka dambeeyay jawiga iyo ajandaha wada hadallada ayaa ku koobnaa xal u helista mugdiga diblomaasiyadeed ee labada dal dood dheer kadibna waxa ay madaxweynayaashu ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo lana xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga labada dawladood kaas oo ku dhisan is-ixtiraam iyo wada shaqayn buuxda oo la xiriirta dhinacyada nabadgelyada dhaqaalaha iyo isu socodka dadka iyo baayac mushtarka wada hadalladan ayaa sidoo kale waxa diiradda lagu saaray sidii dalalka gobolka dhamaantood ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada dhinaca kale dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay u mahad celisay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed kaalinta uu ka qaatay wada hadallada dib loogu yagleelayo xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya siyaasad ay ku dheehan tahay taxaddar iyo wadaniyad ayuu madaxweyne Farmaajo ku wajahay arrimaha Kenya wixii ka dambeeyay markii ay dawladda Kenya abuurtay qalaasaha diblomaasiyadeed muranka xuduud badeedka ee u dhaxeeya labada dal ma aha wax wada hadal gali kara ama ay garwadeen ka noqon karto dawlad saddexaad kiiskani waxa uu yaalaa maxkamad waxaana la sugayaa inta go'aanka maxkamaddu soo baxayo shacabka Soomaaliyeedna waa ku kalsoon yihiin madaxweyne Farmaajo inuu yahay hogaamiye wadani ah oo aan gorgortan gali karin taako ka mid ah dhulka iyo badda Soomaaliya arrimaha noocan ah ee la xiriira masiirka qarannimo marka ay taagan yihiin waxa loo baahan yahay midnimo iyo wadajir guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo inaan dhig loo dhigin siyaasiyiin laga yaabo inay dantooda gaarka ah ay kala weyn tahay wax walba tiyo damiirkoodu siinayo in ay abuuraan warar aan jirin tushuushna ku furaan shacabka Soomaaliyeed xilli loo baahan yahay midnimo iyo kalsooni maamulkeena hadda jira mowqifkay ka qaateen murankii badaya jiray maamulkeena hadda jira mowqifkay ka qaateen murankii badaya jiray